kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasha Nabad TV. Waa anigoo ah Asmar Cabdinuur, Asmar Degan oo ku sugan istuudiyaha aan ku leenahay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, cariga Mareykanka. Barnaamijkan waa barnaamij gaar ah oo aan ku eegayo dhalinyarada aqoon-yahaniinta ah ee bulshada magac iyo maamuus ku dhex joogta. Cabdirasaaq waxaa loo yaqaanaa Bisle, wuxuu qoray buugaag aad u fara badan. Waxaa ka mid ah La Qosol Bisle, Kaftanka Bisle, Dhaqan Jikaar iyo Qoys Barwaaqo. Waxaan ka wareysan doonaa buugaagtiisa. Waxaan sidoo kalena ka wareysan doonaa dhaqanka lagu joogo marka la isticmaalayo baraha bulshada ah iyo su'aalo ku saabsan sheekooyinka baraha bulshada isla dhex maro ee dhinacyo badan taaban doona, taasoo idinkana aad wada arki doontaan su'aalaha aan u hayo. Bal marka hore intaan su'aalahayga u gudagelin, waxaan jeclaan lahaa inaad igula soo dhaweysaan barnaamijkan quruxda badan Cabdirasaaq Xasan Bisle aka Bisle. Cabdirasaaq Xasan Maxamed oo ku magac dheer Bisle. Bisle soo dhawow. Asalaamu calaykum, waa dhowahay Nabad TV Asmar. aad ayaa u mahadsan tahay Bisle. Su'aalo fara badan aan maanta ku wadaa. Inta aan su'aalahaas u gudagelin, waxaan doonayaa inaan wax ka ogaado. Waxaad leedahay asxaab fara badan oo ku follow garaysa. Badanaan waxaa soo qortaa waxyaalo lagu qoslo. Buugaagtaada aa qortayna waxay u badan yihiin qosol iyo kaftan. Ma jiraa marmarka qaar wax kaa xanaajiya oo aad isleedahay maanta bulshada ayagoo dhan ama wada maag ama wada dhaliil? Ileen saa ognahayba bulshada lagama nabad galo. Markaa wax yar soo qortid waxaa helaysaa 10 ku maagta iyo 10 ku taageerta. Bal marmar wax kaa xanaajiya ma jiraa oo istiraad maanta aniga Soomaali waa naloo kala baxaya? Horta Soomaalida in laga qosliyo wax fudud maahan. Taas waxaan ula jeedaa dadka annaga nala midka ah. Hadda Mareykanka oo kale qofka annaga nala midka ah oo waqti intaas leeg dadka qoslinaya saacadan waa millionaire ma fahanti. aad iyo Marka aad. annaga laakiin waa ka duwanahay taas oo waxaa jirta arrintaas sheekan ka qoray. Horta xanaaq wax la ma jiro aniga markaan baraha bulshada ku jiro iyo sida caadigaba. Sababtoo ah haddii aan dhaho xanaaqaya, haddii aan dhaho waxaa kaa dhumaya jidka ku socotay. aad iyo aad. Marka dad badan oo asxaabtayda kamid ah oo aad hal abuur u lahaa markay arkeen in waxa ay sameynayaan dadkay ka qoslinayaan ay kuwa kale oo aan rabin inay qoslaan ama qosli karin ay aad u dhaliilaan ama ay sheekada ka qasaan waxay sameeyaan marka way ka niyad jabeen qaarkood ama qaarkood waxay u bedesheen siyaasad iyo waxaas iyo buuqaas ay u bedesheen. صح aniga marka horeba hadafkayga ahayn inaan maxaa la yidhahdaa aan xanaaqo. Midda kale aniga ahaan markii sheekooyinkan qosolka aan qoraayo waxaa dadka igu dacayadeeyaan adiga maxaa laagta koowaad isugu saartaa. Marka waxaan ku yidhahdaa cuntada qofka kariya hadduusan dhadhamin maxaa la yidhahdaa macaan sidee uu usoo gudbinaa yani usoo سو كو غاني هذيني مع أنت ين قرارته وصح. marka aniga haddaanan ku qoslin ama aanba ka helin waxa aan soo qoraayo ma soo qori lahayn haddaana markaas ku qanacsaneyn. marka ugu horeysaba anaaba live isu saaraba already ana haddaan ka helay cidda kale oo ka helayso maxaa la yidhahdaa iyada u taallaa ciddaan ka helin. marka inaan dadka ka qosliyo ama aan madadaaliyo aniga laftirkayga madadaaliyay tahay. marka arrinta sheekaan hadda sheekaan ka sameeyey oo la yidhaahdo nin qorax taagan iyo nin qabow jiif. sheekadaas marka waxay ahayd inkastoo malaaba la iska ahayd anigoo guriga joogo oo internet aan ah waagaasna data ma jirin oo mobilka lagu qaato oo way xirneyd. sheekaa uu soo dhacda waa qoray marka meelaha internetka kasoo geli jiray oon galabta aadi jiray way ila dheeraatay ilaa galabta inaan sugo. waxaan siraniba baaskan geesilaas kuleelka lagu gooyay hadda maaba soo gelisid. xaafadii dhawaan tegay marka oo maxaa la yidhaahdaa habeen aan yaraan saaxiibadna oo gabar ka shaqaansanayo asna gabadh intuu la sheekaysanaya ana internetka lagu sii madadaali. waagi hore gabar kale lagu keeni jiro lagu madadaali jiray waqtiga internet ay yimidno internetka lagu madadaaliyaa ero marka waxaa ciddi maadaama aan is aqoonin
cidda dugeedaan soo istaagay internetkiyaan gashta qoraxdana way kulushahay maasaa lagu jiraa boosigayaan soo dhigay gadoonaan soo dhaawaa soo baxay gurigaan iska imid nin xafiiskiisa dhex fadhiyo oo qabow ku shidan yahay mukeefkiisa ku shidan yahay wuxuu soo qoray waxaa noo soo qorto ma weyse marka waxaan soo qoraysa marka dadka horta dadkaas waaye soomaalidana way adag tahay rafaad dheera usoo martay oo internet baa soo raadiso kii kala sugi weydo qorax kuleelkii baa kusoo lugaysa isagana wuxuu leeyahay ma waxaad noo soo qortaa weyde marka horta dadkaas dadka mawda xumo waxay ku xiran tahay qof walba adiga sida aad maxal dadka horta sida ay kuu bartaan ay ku xiran tahay sababtoo qof waxaa arkaysaa adkaysiga markastoo markuu ku barto qofkii waaba qof kalaba waxaa is leedahay qofkan waa okay qofka maxaaba marka hore ka qaldaa marka dabeecaddeena sida u samaysan marka haddaad tiraahdo waa xanaaqayaa waxaana jirin adoo ka xanaaqdo halaana jirin kujibisada la sheegi jira bisle waxaan ku weydiinayaa dadka maadaama markaa qoraalka qortid badanaa sheekooyinkaaga iyo bugaagtaada ay ku qoslaan weli ma aragta qof markuu kuu yimi life uu ku barto ku yiri warniyo markaan qoraalkaaga akrinaayo shakhsiyad kale inaad leedahan kaa haystay haddana different ayaa tahay maxaa isbedelay laba qofaa kala tihiin adiga markaa caadi lagu arkay markii qoraalkaaga la akhrinayo wax ku yiri weli ma aragta dadka no inta badan horta markii oo meel aan ka hadlayo dadku waxay yiraahdaan qoraalkaa ku fiican tahay magaalada markay igu arkaan waxay dhahaan different aad tahay oo markaa wax qoraysidii markaa caadiga tahay sababta wax kale maaha no ayaga dadku waxay sugayaan marka maadaama aniga aanan video iyo waxaa duubin inta badan oo qoraal aan soo geliyo waxaa usoo hurmaysa Mr. Bean oo indhaha ee afka qalqalluuciyaya ama John muxuu ahaa Jim Carrey ma fahamtay marka magaalada markay kaaga hor yimaadeen waxay rabaan adoo Mr. Bean camal ama Jim Carrey ama sida amadii u socdo qosolkaaga waxay rabaan inay kasoo arkaan meel fog أنا قف عادي دويد كبير ونلول برونايو بربوليس ريالينا فات هذا ورجع dadka waxay rabaan marka adiga nin oo Jim Carrey oo sida wax u qoray u soo taagan oo yani nin adduunyo ay ka dambayso ma lagu malayo mid kale dadku waxay u haystaan markaad social media ku jirtid oo maxaa la yiraahdaa aad wax qoraysid geed loser ah oo waxba ka haynin oo meeshaas fadhiyo oo nolosha ka soo dhacay oo qol 4 mitir ku xiran maya waxaan kaloon ogahay oon rabaa inaan halkan ka sheego inaad tahay aabe caruurtiisa labada boos baqaar u buuxiyey oo u noqday hooyo iyo aabo oo ilmihiisa korsada shaqeeya inta badan ileen waxaa tahay qof mas-uuliyad saaran tahay marka marnaba waxaan rabaa inaysan dadka aaminin inaad tahay qof iska fadhiyo oo noloshiisa dhan ku bees gareeyay internetka sidaan ogahayna haddaad u baahan tahay inaad internet ka shaqaysato iyadoo jirto dad badan oo ka shaqaysto oo youtubero leh inaa adiga xitaa dhinacaas aadan ka eegine madadaalada dadkaaga dartiis aa usoo geshid inta badan se aad shaqo ku mashquulsan tahay waa gartay weli waxaan ku dhex jirnaa xagga iyo internetka maadaama aad qof caanka ah tahay facebooka maalmaha dambe waxaa lasla dhex mariyay sheeko laba fanaan baa wada qorayaa layiri ma hubno inay ayagu yihiin iyo in kale sidee u aragtaa ninkii naagta markay kala tagaan inay isu soo gabyaan horta waxaa jiro waxa loo baahan yahay in la fahmo furiinka waa inuu xal noqdaa ma fahamtay hadduu xal noqonaynin ma laisla joogo oo sidaa iyadoo laisla joogo laisku buuqo marka sheeko waxaa jirto gabdhaha ay raali lahaadaan aniga wiil ahay oo marka inta badan jooga gabdhahan ka sameeya gabdhaha waxay weydiiyaan wiilasha maa joog ka samaysid markaasaan ku irahdaa aniga wiiligay ma shukaan sameeya maxaan joog ka sameeyaa marka gabdhaha aqaanaha taageera bogta marka waxaan ula jeedaa marka jooga aan gabdhaha haddaan kusoo qaato markay qalada lay fahmin waxaa la yidhi nin saaxiibkaya wuxuu yidhi hadda ka hor waryaada naagahan aad soo furaysiin naga daaya haddii kale anagayna dhibayaan heestow yidhi mafaad anaga wuxuu ka wadaa miya ciilka iyagu ninka hore u qabtay igula dhacaysa ka wadaa miya marka waxa waaye guurka hadduusan xal noqonaynin waa in laisla joogaa because waa inuu xal noqdo waa guurka maahan in gabadha markii wiilka ay kala tagaan oo ciyaalka ku dayaco yidha naagtan waa inacday anigana ilmaha waa dayacayaa iyadana ay maxaa la yidhahdaa ay ka daba hadasho balaayo kale ka daba sheegto maantana inta daba socoto wax fiican maahan
kolay sheeko oo aad u dheer oo aan u malaynaya inaan inta laga sheegi karin aan ka qoray cidda rabto wallka facebookgayga ka heli kartaa marka adigu sheeko waxay ahaaday noocaas camal ah nin inaag wax ku haystay marka oo la yiri maxaa la yidhahdaa qaadiga wuxuu yiri war labadaba hala xiro wasaqda waxaan bulshada lama horgeyn kara marka dhibka ugu weyn oo na haystaa waxay tahay wixii xaafadaha lagu hayay in baraha bulshada lala imaado xoogaa waa laga qurux badnaay laakiin 99% ana waxaa aaminsanahay waxaas inay dad kale oo kuwa aan wax guursan karin lana guursan karin inay sameeyaan aan qabaa sababtoo ah nin weyn oo family iyo wax soo arkay ma u malaynayo nin inaag isfuray inuu ka daba sheekeynayo oo beenka daba sameynayo oo maxaa la yidhahdaa nin inaag hadday kala tagaan oo adaa saan ay dhahaan waa meesha waxa waaye wixii la asturayo dhanaa meesha banaanka imaanaya guurka waa in laisku asturnaado marka dadkan wax kasta ay bumbuuninayaan aniga kuley lama yaabayo waxaas uga arkayni soomaalida dhaqankeena asaas iska noqday dadkina qaarkood ayaga og waxaan inay bayan yihiin waxay isku dayayaan inay wixii ay aad u reacti gareeyaan hadda ugu sii jirto youtube-kii iyo waxaa la yidhi facebookii lacagaa laga sameynaya la yidhi marka shimbir hadday qaaq dhahdo waa in laga sheekeeyo waa dadaaba sheegaysaa marka dhibaatada ugu weyn oo jirta meesha waxaa waa hunguriga meel qaldan naga gala allaha noo saqiro aad iyo aad hadda bariiskiyaaba naga soo galayba waxyaalo badan oo waxaad arki doontaa laga xishoon jiray in banaanka la keeno weli waxaan kuda jirnaa su-aalihii ku saabsanaa social mediaha bislow waxaan ognahay in doodo fara badan dhinac walba loo dhigay ay ka dhex dhalatay arrintan farxiye cabsiye waxay tiri mar la wareysanayay ninka hadduu naagtiisa qasbo wuu kufsaday waa ogahay adigana waxaa tahay aabba xaasla ah arrintaa bal dhinacaaga inaa waxaan rabaa aan ka ogaado sidaa ka aaminsan tahay maxaa ka aaminsan tahay horta hal waxaa jirto halka waxaa jiro waxaa waaye intaan ugu gudbin taas jawaabta waxaa waaye maxaa la yidhaahdaa intaan ugu gudbin waxaa rabaa qofka markuu yidhahdo waxaan waa qalad iyo waxaan waa sax markuu yidhahdo horta xaaladaas asima ku dhex jiraa waay seesa u maarayaa waay hadday leedahay aniga nin waa ii joogaa mana i qasbi kara hadday leedahay waxbaa laga dhegeysan karaa laakiin gabadha nin u joogin gabdho la qaba inay sii huriso waxay u eg tahay inay rabto inay dadka iska hor keento arrinta dhinaca kale waxaa jiro markii la isguursanayo horta waxaa waaye waxaa la yidhi markhaati ka ahaada aniga qofkan waa isku maqannahay ogaadaa la yidhi markhaatiga waxaa loo sameynayo meherka dhan u dhacayo waxaa waaye in la ogaado waa isku maqannahay wixii kasoo baxana meelay leeyihiin waa si fiican marka wuu iqasbay ma iqasbin iyo maba imaan karta saan aniga qabo marka waxaad leedahay miya ma diidi karta naagta ninkeeda mar haddii laisku soo ogaado laisu soo siiyey soo ama baxeen maya haddayba ayaga isa soo raaceen haddaanan ninkaan naagta marka horeba lagu soo qasbin sababay isu diidaan maba jirta meesha qof walba mas-uuliyada saaran haddii marka waxaa laga fiirinaya waxaa waa gabadha ninka way diiday okay sida gabdhahan hadda casriga most feminista u badan hadda siday u dhigayan haddii loo dhigo ninka dee waa inuu naag kala raadsado marka ma u malaynaya inay jirta naag ogolanaysa inay nin kala raadsado naag ogolanaysa ninkeeda inuu naag kala raadsado meeshaas arrinta markay gaartana gurigaas waxaa waaye waa isku soo dhamaatay marka haddayba meeshaas gaaraysaba marka ugu horeysaba waxaaba qabaaba naagta ninka maku wanacsana soomaan haa waxyaabaan laga doodinaa jira dee qof saala saaran haddaa la sheekaysa gabar dhaawacaas oo kusoo gaaray maxaa meeshaas uga leexaweysa marka anta soo martay marka waxaa jirto saalo saaraya qofkan qallayna u baahan yahay marka hawshaas inay dood geli karto ma qabo qofka aqlageeda shaqeynayo sababta ay meesha u joogto ogtahay hadday arrintaas soo dhamaatay soo xirxirantana inay isaga tagtaa fiican dabcan aniga markaan ka faalloonayo aan ka hadlayo dadku waxay ku leeyihiin adiga waa xoogtaa miyaa naagta aniga ma u malaynaya weligay maxaa la yidhahdaa ma u malaynayo maxaa la yidhahdaa iguma soo dhicin xataa mana igu soo dhici kartaba garanaya maahan inaan ragga ka micno badanahay inaan ragga ka aqli badanahay inaan ragga ka wanaagsanahay maahan
laakiin expectationkayga meeshaas ma jiro saan isla yahay marka muhiimadda waxaa waa nin naagis qaba way isxoogeen way isyeeleen waxaasoo dhan wax ka badanaa ka dhaco meeshaas waxyaabo badanaa meeshaas xaafadaas ka dhaco aadayna u yartahay gabar meel soo istaagi karta ninkayga ay xoog laakiin arrintan waxay u eg tahay hadda dhallinyaradu waxaa laaya walisguusa laga kari laaya marka maqaba aniga yiraahdo nin inaagtiis wax dhex maray inay qola kale ay soo gasho waxaa jirta nin oday hadda kahor ii sheekay wuxuu igu yiri anagoo sheekaysanayno marka waxaan ka hadlaynay barbalamka familkeeda marka guri xaafad meeshaan fiirin guryaha soo jeeda dhowr filo miya 4 filo saa qurux badan markaas la dhisay guryahan fiiriyo say kuleeyihiin aad u qurux badan yahay kajelooyinka fiiriyo way qurux badan yihiin wuxuu dhahaa marka gudaha laakiin haddaa gashay foolxumo kale loogu tagaa buuq badanaa ka jiro waxa ugu muhiimsan waxaa waaye family problemka inuusan kasoo bixin maxaa la yidhahdaa guriga haddii rajo la iska leeyahay marka ani ma garan karo waxaan marka banaanka loo soo saaray naagta ninkeedistaan meeli kara ninkeeda waxaa ka badanaa la yeelaya naagaha qaar waxay ku leeyihin garaacniyo wax adduunka ka jiro waay waxa jiro oo la ogyahay waa nimanka qaar inay wax dilaan naagta saas maxaa la yidhahdaa ay ku helayaan maxaa la dhahaa dareenka ku helaan waxa caadi adduunyada ka jira waaye naagaha ku qabaan naagaha waxay ku leeyihiin ba aniga nin naag kale ma ay qabta haddaan lii dilay ma fahan marka waxaa waaye waxaa fiican marka qof kasta asiga fikirkiisa inuu meel iskala soo istaago ma wax laga hadlaya qoys waaye nin naagtiisa waaye kulley dadka la hadlayna waa dhalinyarada hadda nolosha u cusubtaa because qofka noloshaas ku dhex jiro uu yaqaanaa wax meesha ka jiro ma fahanta si fiican waxaan leeyahay aniga dhalinyarada hadda ay guurka qabaafka qabaan ayagaaba yaabanba oo bulshada laga kari la'yahay marka ayaan guurka loo xumaynin qof kasta dhibka asiga gaarka u haystanaya yuusan uga dhigin bulshada dhan inay haysto dee adduunyada adiga hadday kugu dunta ragay u kufto daday u kufto ma fahanta marka ana waxaan qabaa qofka barbalam qabsado inuu social media iskala imaado soo rabo isaga falanqeeyo haddee marka meelo qurux badno koley wixii dhan waa fikira la yidhi fikirkana saas uu ekaanaya marka realityga marka laga aado waxaa waaye xaafadaha waxa la sheegaya ka badanaa ka dhaco ma fahanta midda kale hal arrinaa jirto hadda Maraykan iyo Yurub iyo sharciyaa jiro oo dumarka u degsan gabadha saan ma yeeli karti gabadha saan ma dhigi karti gabadha inta ma samayn karti waxaas soo ma jiraan aad iyo aad sharciyadaas haddaysan baahidaas imaanin maba la samayn lahayn moogtaa waran so macnaheedu waxaa waaye dadkana la leeyahay waa idinka waa ilbaxsan yihiin oo saan waayo inta waayo sharcigaasaa ka haayo anaga laakiin anagoo sharci waxbaa naga jirin oo dowlad noo jirin waxa noo jirin la noolaay problemada familkana aaday u yaraayeen ma fahan because waxaa jiro dhaqanaa jiro xeerbeegaa jiro waxaa jiro waxyaabo badanaa jiro gabadha walaalkeeda ay leedahay aniga waxaan qabaa soomaalida waa dadka markay imaado familka waa gabadha soomaalida oo kale waxaan qabaa 100% gabdhaha kale way ka fiican tahay waxay ugu fiican tahay gabadhan hadduu ninkeeda ugu gacan qaado ay ciddeeda usoo dacwoodo walaalkeeda wuxuu dhihi karaa oryaa walaashay maxaa kuu geeya u dhihi karaa adduunyada waxaas ma jiraan ma fahanta marka sideedaba waxaa fiican aniga ma qaba nin inaag waa xoogi iyo nin inaag saan siyeela iyo ninka naagtana maxaa la yidhahdaa ninkan jeebkiisana qasab ay ugu leedaha waxaa ku jira ma fahanta adigu fikradaada waxa weeyaan in waxaasi wax macquul aysan ahayn soma wax macquul maaha hadday macquul noqoto waxaa jirto oraah aad caan ugu noqoto social media oo la yidhahda naagta ninkeeda ay sugayso naag kale waynayso marka waxaa leedahay hadda ninkaaga heesaweyso waa lagu haynaa marka naagta sii jeesato mid kaloo soo jeedaa banaanka u taagan waa muhiimada marka waxa waaye haddii ay sheekada tahay dee familo awalba isku soo feesnaa la isku sii soofeeyo wax macnaha ay soo kordhinaysa ma laha naag kastoo la furana ninaa meel u taagan oo lahay ninka hore anaa ka fiican ninka naag furana naag kale meel u taagan oo lahay tii hore umayadeed anaa ka fiican leh wax caadi si wacan jiro waay waxaan leeyahay intii waxaa la heli karaa yaana dhib la raadinin war dhammaaday taas waxaan kaga gudbayaa meeshaas waxaan rabaa inaan ogaado bugaagtaada
waxaad qortay sheekadee ugu jeceshahay oo markaa qoraysay iyo markaa xasuusatidba kaa qoslisa kuwa kaftanka horta magalaan jecleen maba soo qorin laakiin waxaan isleeyahay sheekooyin badan horta meesha ka buuxo kaftanka bis loo kale 245 sheeko ku jirto laqosil bis loo kale waxaa ku jirta 200 sheeko 445 sheeko waa labada buug marka la soo geeyo buugtaas waxaa la yidhahdaa bis la joogkiisa lahaa mid saddex soo wadaa oo asiga ilaa 300 ah marka ama ka hor dhacaya magaciisa laakiin sheekooyinka aad ay u badan yihiin horta laakiin aniga sheekooyinka inta badan oo diasporada oo aan ka sameeya aan aad ugu qoslayo waxaa jiro hal sheeko waxaa jirto oo aan ka sameeyey wiil diaspora ah marka sheekada anaa sameeyey laakiin conceptiga waxaan ka helay yar diaspora ah oo waxay ahayd maxaa la dhahaa marka sheekada waxaa waaye gabadha wiila waxaa dhintay sidigiis walaashiisa oo ano abay ninkaaga rest in peace no qabriga ku raaxaysto rest in peace raaxaysto gabadhaano qabriga ku raaxaysto taageeraba marka mid kale waxaa jirta iyadana waxaa jirta la dhaho sheeko dibadda ka imaaday marka Soomaaliya waa iska taqaanaa marka dibadda ka imaaday saacadan si waxaan si wax kasta oo laga qaadanaa xilli dibadda ka timid mugta marka gabadha waxay tagtay tuulo oo reerkooda degan yihiin markay tagtay gabadha tuulada ay tagtay oday oo cideeda ahaa waxaa laga qabtay isbitaal la soo qaaday magaalada waxaa la yidhi beerkaaga dibadda bisa wax looga qaban karaa waa in beer lagu helaa wuxuu yidhi gabadha lagugu wacay beerka lagaga qaado dhahno ayadaa dibadda ka timaado soo helaysay gabadhiisu rabo inuu qasho wuxuu haystaa dibadda xataa beer in laga soo helaa oo haystaano dadka dibadda ka yimaada macnaha dhibaatada ay kala kulmaan Soomaaliya ayadaa dibadda kasoo helaysa oo laabanaysa aniga beerkaa siisiisu leey beerka iga soo qaado yiri no ayadaa dibadda ka timaada wallahi billahi sheeka aad u qurux badan waaye bas laaniya adiga ma kala dhargeyno waxaan rajeynayaa mar dhow insha Allah inaan kugu wareysan doono stuudiyaheena live adigoo nala jooga laakiin hadda kan intaasan kusoo gabagabeynaya hal fursad oo ugu dambeysa ku siinaya maxaad jeceshahay inaad Soomaalida badan ee ku taageerta ee ku raacsan aa u sheegtid waxaa la yidhi qof taladiisa u go-an tahay talo kaagama baahneen laakiin waxaan umaleynaa horta waxaa jiray barnaamijka waxaa ku bilowday sharciyadii oo social media markay shaqaabka lagu joogo sooma marka asaan talada ka dhigaynaa oo talada waxaa waaye horta social media markaad joogtid qofka ama flow isu tihiin ama friendka aad tihiin waxaa waaye wuxuu markaas ka dhigan yahay saaxiibka alifeka asxaabta alifeka sida caadiga ah u leedahay ka dhigan yahay social media markaad joogta asxaabtaada qofkaana ka mid ah marka dadka isku wada fikir maahan isku wada aragti maaha isku qaba xumada waran waxaa laga yaabaa qofkan maanta waxaad rabin uu soo qoray ama video soo duuba oo qaab aad rabin uu soo hadlay adiga saaxiibaad tihiin social mediaha asxaabtaadu ka mid yahay waxaa wanaagsan inaa horta waxaan haddaad adiga rabin waa dhinac mari kartaa faraha inaa ka qaadid oo aadan noqonin qof yacni banaanka uu imaado kale aadan u noqon oo aa faraha ka qaadid qofkan fikirkiisa asaale wixiisa asaas kale meeshiisa asaas kale wuxuu rabaa ku sheego hadday aad ka fursan weyso aad u aragtid maxaa yidhahdaa aad u aragtay in waxaan aad u baahan tahay inaad ka hadashid si caadi oo asluubeysan inaad uga hadashid sababtoo ah dee qofka hooyadaa wasasaan maxaa u samaysa haddaad tiraahid waxaa waaye waxaas hagaajisa iska dhaaf waxaa kusii dhashay marka waxa ugu beysa waxaa waaye dadka kale waa iska dadka kale laakiin dadka oo friendka ama flowis u ah ee asxaabta ah dadka kale way isaga dhow yihiin inay intaas ogaadaan keliya marka waxaa fiican saaxiibka qofkan friend aad tihiin qof kale afligaadeeyey waxba uma baahna inaad amartid qofkan saaxiibka waaye waxaad rabin oo soo qoray uma baahnid inaad la doodid inaad la muratid inaad ku dagaalantiin waxaan micno badan lahayn oo dhammaanayo oo laga yaabo boostigaas ama videogaas inuu xataa laga yaabo inuu tiro
ama maalintaas bis uu soo geliyay berrito sida adiga hadda uu hadlaayo wax sababa isugu dagaashiin isugu qabsatiin ma jirta aniga qabaa marka waxaan dhihi lahay at least inta oo bal isku doonta saaran ama friendka sila ama flowgiisu ah inay is ixtiraamaan marka intaas hadday timaado waxaan kaloo dhan waa iska soo yaraanaya because waxaa waa qof aadan aqoonin ama is aqoonin hadduu ku caayo hadduu ku ammaano waa isugu kaa mid mogta wakaasa aad ayaa u mahadsantahay cabdirasaaq xasan maxamed oo barnaamijka maanta qayb weyn igala qaatay inta aan midkan lamida kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa anigoo ah asmar cabdinuur sidaa iyo nabadgelyo